Bismillahirrahmanirrahiim. Marka waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan. Marka labaad waxaan salaamayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Marka ugu dambeysa waxaan salaamayaa bahda saxaafadda sida Midnimo TV, Post TV iyo SDM. Inta markaan ka imaado magacaygu waa Injineer Cabdiraxmaan, dadku waxay yaqaanaan Professorka. Waxaan ka mid ahay shacabka ku nool magaalada Jigjiga. maanta xagan waxaan ka dirayaa dhambaal waxaan ka doobayaa fiidiyoo ku socda madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane madaxweyne challenge baad igu noqotay waxaan rabay inaan bisha Ramadaan ka hor aan aroosto guursado laakiin challenge baad igu noqoto adiga ay hortaagan mudane madaxweyne waxa weeyaan markaan ku leeyahay challenge baad igu tahay wax kale ma aha gabadhan hadda u jeedid oo muddooyinkii ugu dambeeyay waa mehersaneed marka meherka ka hor waxa soo maraa stage loo yaqaan stage-ka oo la shukaansiga gabadhan markaan mar walba waxaan ku shukaasan jiray oo ugu sheekeyn jiray inaanan xawayaan dalxiisna geyn doonin meelna gurina u dhisi doonin laakiin san madaxweynaha deegaanka la kulansiin doono adigu ma sha Allah gabadhii waan mehersaday oo waxay noqotay gabadh hadda xaaskayga ah laakiin intu waxay ka taagan tahay arooskii oo gabadhan hadda waxay taagan tahay ilaa madaxweynaha deegaanka la kulansiiso oo madaxtooyada igeyso oo bunay ka fiiga soo siiso oo madaxweynaha arko wax aroos ah bay raatay dhacaya ma jiraan marka mudane madaxweyne aniga og in waxa weeye wadanku dimuqraadi yahay qof walba muwaadin aan fikirkiisa si xor u dhiiban karo aniga og inay waxa weeyaan tahay waajib ku saaran inaad muwaadin walba waxa weeye dhibaatadiisa xalisid haddii noqon lahayd mid siyaasadeed ama mid qoys waxaan si sharaf ah kaaga codsanayaa inaad qoyska Soomaaliyeed qaabisho oo waliba arooskooda iyo wuxuuda ka shaqeyso kolay tabade waxa weeyaan xaajo walba waxa xaliyay waa rag haddana waxa xaajadu waxay taagan tahay madaxweynaha deegaanka wasiirna ma xalin karo aniguna ma xalin karo qof kale oo xalin karana ma jirto marka waxaan go'aansaday inaan fiidiyoogan iyo dhambaalkan kuu soo diro hadaad fiidiyoogan aragto waxaan rajeynayaa la kulankaaga iyo in micnaha waxa weeyaan balantan qaaday aad ii oofiso waayo balantu waa aayad ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay awfu bil ahdi in al ahda kana mas'uula marka madaxweyne aad iyo aad baan ku salaamayaa waxa weeyaan khayr badan aan ku rajeynayaa